السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا إسلام دماء أصحابكم حين جربكم عبد الله الشوكي سيد هذا مقال كنا مانتا وحنا وهذا لدونا سيئات وقري كرتا ترى أنت سبسكرايب أهست يوتيوب كاجا وحنا ملاينا إن أو بدنا بقى and مالمان أنسوق لينين wax فيديو أو channel كنا أرماس تاسو كل عاد إنا مشكور سنة نبغى برشة لكن ما عنده waxaan ku gudbinaa mowduuceen aan ku soo qaadi doonaa sidee aad u qarsan kartaa tirada inta subscribe ah haysto YouTube channel-kaaga asxaabtana la socda marka koowaad YouTube-kaaga markaa soo qodxaqsi doonaysa Create Studio markaa ka doorato marka aad doonayso inaad qarso inta subscribe ah haysto waxaad sii dooranaysa channel hadda in tirada subscribe oo YouTube-keena waa showin oo qof walba arki karo soo boqdo channel-keena balse hadda waxaan sameyn karnaa in aan qarino inta subscribe ay hayso aan ka qarino dhamaan qof walba soo boqdo YouTube-keena balse qofka YouTube-ka oo owner-ka oo arki kara laakiin dadka soo boqdo YouTube-ka hadhow ma arki karaan awood u yeelan karaan haddii aad qariso inta subscribe aad haysato YouTube channel-kaaga markaas channel soo gasho waxaad kasii dooranaysaa advanced markaa kasii doorato qaabkan ayuu soo muuqanayaa then waxaad kasii dooranaysaa meeshaan ay ku qoran tahay subscribe count oo ah tiradooyinka inta subscribe ah haysto YouTube-kaaga hadda waa display number of subscribers to my channel waa kuu soo muuqsan qof walba arki karo waxaan ka dhigaynaa dhuulo display the number of people subscribe my channel taasoo macnaheedu tahay inaynu arki karin qof walba oo soo boqoto channel-keena marka awood uma yeelan karto inay aragto inta subscribe ah haysato hadda marka waxaan dhigaynaa dhuulo display markaa ka dhigayno save aan dhigaynaa save changes oo dhaqanaa then qof walba channel-keena soo boqoto ma arki karto awoodna uma yeelan karto inay aragto tirada inta subscribe aan haysano YouTube channel-keena waxaan u malaynaa muuqaalka inuu ku cajab geliyay aad ka hesho haddii aad muuqaalka ka hesho please like garay una share garay asxaabtaada Ramadan Kareem wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh